madaxweynaha maamulka Khaatumo iyo wafdiga hogaaminayo ka soo kictimay dalka Djibouti ayaa maanta ka soo degay gadada diyaaraduhu ka haadaan ee golayeedhay Laascanood waxaana waftigan garoonka ku soo dhaweeyay dadweynaha aad u fara badan kuwaas oo intooda badani ay ku faraxsanaayeen socdaalka waftigan ka socda Khaatumo waxayna geestooda garoonka diyaaradaha ku sugnaa xubno kamid ah gudiga Soomaaliland uga qayb gashay wada hadalka Khaatumo iyo Soomaaliland ee dalka Djibouti ka qabsamay maayarka degmada Laascanood Cabdicasiis Xuseen Taarwale ayaa waftigan madaxweynaha waftidan ka socotay Khaatumo ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Laascanood Dr. Ali Khaliif Kaleed ku soo dhaweey garoonka Laascanood ku soo dhaweey magaaladaadii geestiisa barasaabka gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir gudoomiyaha xisbiga Ucud Engineer Faysal Ali Waraabe iyo sidoo kale wasiir dowladaha waxbarashada Soomaaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi ayaa kelmado soo dhaweynaa ka jeediyay madaarka Laascanood madaxweyne waxaanu ku sheegaynaa halkan waa Laascanood ku soo dhawow waa nabadgelyo kulli wixii war dambe insha Allah taala socdaalka iyo safarkaaga dib aynu ku horeysan doonaa waa maalintii aan wadaag wadno waa shirka qura Ilaahay noo fasaxay oo ah ka sulux ah ayaa Ilaahay noo fasaxay maanta waxa weeye professorka waa magaaladiisii waa dalkiisii ku yimi waxa ogaataan inaan wax ku noqon karno midnimada marka waxa weeye lafta ku dhuba lagu kabaa isu dad baynu nahay aruuteena iyo mustaqbalka aan ka shaqeyno waliba anaga xil weyn ma saaran anaga caliyo aakhir walna xisaabtamaya soo dhawow wasiir madaxweyne professor maxaan ka kugu daraa mujaahid waxaan leeyahay dhammaanteen inaynu ka wada shaqeyno gudoomiyaha wuxuu 3 sano maxaa dhahay wadeel 3 sano iyo 30 sanaba inay istaahil bay ku tahay nabadda iyo midnimadu iyo ummadeenay qaran kaliya yeelato Professor Ali Khaliif Kaleed oo hormuud u ahaa waftigan Khaatumo ee maanta garoonka Laascanood lagu soo dhaweeyay ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ugu horeyso wada hadallada Soomaaliland iyo Khaatumo u dhaxeeya wada hadallaan noo bilaabmay wax noo dhamaaday ma jiro dad baa meelaha waxay la wareegayaan horaaba waxiiba u dhamaadeen oo lagu kala tag waray waxaanu xagala geel wax la qariyo gunti la galiyo ka weyn war waa arrin culus war waa u dhabar adeegaynaa war wax badan baanu rabnaa inaanu ka wada hadalno oo ka gungaadhno laakiin waxa la rabaa towtow iyo koox iyo nintooxsi meelaha wareegaya oo la aniga baa talinaya war nooma taalo war kuwa hadda Soomaaliland ka mid ka ah ee dawladda ah war kuraasidooda iyo manaasibtooda duulimaan kuma nihin war haddii loo arko iyagaaba khibrad yeeshay meesha joogay inay iyagu sii joogaan wartaa waxba kama qabno socdaalkiisa maanta madaxweyne Ali Khaliif Kaleed ayaa imaanaya 12 sano kadib oo uu ka maqnaa Laascanood walow aanu hore ugu soo gudbin gudaha magaalada Laascanood waxaana markii uu diyaaradda ka soo degay kadib salaan siiyay qaar kamid ah shacab aad u tiro badan oo ku sugnaa banaanka hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Laascanood isagoo markii dambena u sii gudbay dhinacaas degmada Werwer ee gobolka Buuhoodle qaar kamid ah dadka ku dhaqan magaalada Laascanood ayaa iyaguna ka hadlay aragtidooda ku aadan socdaalkan uu madaxweynuhu ku soo gaaray soo dhaweynaa madaxweynaha maamulka Khaatumo waxaan ku soo dhaweynaa garoonka Laascanood gobolka Sool oo roog cas loo dhigay madaxweynahana waxa laga sugayaa wixii uu kala maqnaa dadka deegaanka gobolada SSC haday nabadgelyo xumo tahay wax ka qabadkeeda iyo haday horumar tahay wax ka qabadkeeda soo dhaweynaa madaxweynaha Khaatumo Ali Khaliif Kaleed madaxweyne soo dhawow magaalada guriga soo dhawow waa garoonkii golayeedhay safarka aad gashay iyo wada hadalka aad gashay waa ku soo dhaweynaa waxaan jecel lahay waxaad maanta dadka qabato baa u cuntumaya xaaladda waqti jira waad ogtahay badbaayo colaad waa jirtaa laakiin waxaan ku raacsanahay wixii wanaagsan dadka soo qabatay diyaar baanu nahay waxaan wixii dadka anfacana diyaar baanu nahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد عثمان عبد النور TV عالمي Universal Laascanood